Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelkana Somali Kitchen. Maantana waxaan sameysanaynaa buskud macaan oo ciida aan ugu talagalnay. Waxaa u baahan tahay 2 koob oo sokorta shiidan ah, midda caadiga ku isticmaali kartaa 1 koob oo batar ah, batarka iyo sokorta aan isku soo shiidanaynaa. Buskudkan waa buskud fudud oo macaan, ka faa'iidaysta insha Allah. wax badan uma baahna, waxyaabaha jikada ka helaysid unbaa ku isticmaalaysaa. Sokorta iyo mashiin la'aan xitaa waa sameysan kartaa. Haddana waxaan ku darsanaynaa 5 xabbo ukun ah. Qiyaasta burkay ku xiran tahay markaa sameysanaysid. Ani hadda kiilo bur aan ku sameynayaa intan. Tana waa diyaar. Markuu soo noqdo waxaan ku darsanaynaa baking powder qaadada shaaha oo buuxdo 1 xabbo ah iyo qaado vanilla. Tan waxaan ku bilaabanaynaa burkeeni. Marka hore 2 koob oo bur aan ku qasayaa, haddana 2 kala gadaal aan uga qasan doonaa insha Allah ilaa aan ka helo bur markaas aan qabsan karo jilicsan oo fiican. Markaan isku dhex geliyo hadda gacantaan ku qasanayaa. Burkan yar ugu darsanaysaa, haddana saas ku soo baxay markaan soo xashay. Jilicna maaha mana adko. Kana waa chocolate. Tana waa diyaar. Waan jarjaranaynaa marka. Oven-kana ha ku daarnaado 150 aad geysanaysaa. Wuxuu ku jirayaa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo meelahaas. Haddaa guduud zaid rabtidna 15 daqiiqo ku jira, haddii kale 10 daqiiqo waa diyaar. Haddana waan fidsanaynaa burkii. Culaysna ha ka dhigin burka khafiifna yuu kaa noqonin fiditaanka aad fidinaysid. Buskud burbuuran haddaa rabtid waa cuslayn kartaa. Geedkaas aan ku soo jarjaranaynaa hadda. Kana waa mid kale design.
saan usoo jaranaynaa kulley. Burka dhexdaa kaba bixinaysaa. intaa ma tuuraysid waa soo sameynay, haddana waa fidinaysaan, haddana u jarjaranaysaa mar kale. Kana haddana saas ku soo baxay ovenkan gashanayna marka. diyaar haddana buskudka saas ku soo baxay saabta jileecsan ka faa'iideysta insha Allah.